السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال ku soo dhawaada barnaamijkeena wararka caalamka waxaan idin soo jeedin doonaa aniga oo Saciid Maxamed ah. Qodobada maanta ugu door karoon wararka caalamka aad ku daawan doontaan waxa kamid ah. Dawladda wadanka Sacuudi Carabiya oo bilowday hawlgal ka dhana musuqmaasuqa iyadoo la bartilmaameedsaday dad badan oo ka tirsan qoyska boqortooyada ka taliya wadanka Sacuudi Carabiya iyo dad kale oo maalqabeena. waxaana lagu daba jiraa dad badan oo madax ka tirsan dawladda wadankaasi iyo dad kale oo maalqabeena. dawladda wadanka Imaaraadka Carabtuna waxay sii wadaa duqeymihii ay ka waday dalka Yemen iyada oo dawladda wadanka Yemen ee sharciga caalamka aqoonsi yahay ay ku cabanayso in la laayay askar gaaraysa 300 oo askari oo ka tirsan dawladda wadankaasi oo Imaaraadku ay dileen. dawladda wadanka Iiraan waxay ku fashilantay markii labaad inay dayax gacmeed hawada u dirto. madaxweynaha wadanka Mareykanka Donald Trump waxa uu Twitterkiisa soo dhigay burburka dayax gacmeedka wadanka Iiraan iyadoo laga cabsi qaba in uu Mareykanku ka dambeeyay inkastoo uu beeniyay. madaxii ugu sarreeyay ee shirkadda Twitter ayaa page-kiisii la jabsaday waxaana laga cabsi qabaa in macaamiisha kale la jabsado fadeexad weyn ayaa ku soo socota shirkadda Twitter.